Assalaamu calaykum. Ku soo dhawow daawada channelkeena aragtida maanta. Muuqaalkeena maanta waxaan ku sharaxaynaa filim aad u xiiso badan oo laga metelay dhacdo xaqiiqi ah, kaasoo ku saabsan wiil 13 jir ah oo lagu magacaabo William, una dhashay dalka Malawi, kaasoo ku nool tuulo ku taala bartamaha dalkaas dhaca koonfurta bari qaaradda Afrika. sheekadu waxay ku bilaabanaysaa wiil yar oo laga cayrinayo iskuul sabab dhaqaale darteed oo ay sababtay duruuf abaaro iyo biyo yaraan soo haleeshay tuulada uu ku noolaa iyo nolosha reerkooda oo ku xirnayd dalagga beeraha, waalidkiisuna aysan awoodin inay kharashka iskuulka ka bixiyaan. abaaro ba'an oo jiray awgeed, William iyo aabihiis iyo dadka deegaanka ayaa rajo ka qabay inay dowladda caawin doonto. maayarka tuulada ayaa dowladda ku eedeeyay in abaar daran ay ka jirto tuulada oo ay dowladdu ka gaabisay doorkeedii ahaa inay dadka dhibaataysan wax u qabato. balse natiijada ayaa noqotay in la jir dilo maayarka. xilliga gurashada ayaa la gaaray. qoyska wiilkan yar ayayna u soo goday 5 dambiil oo galey ah. si niyad jabsan ayayna isu eegeen. dalangaa yar ayaan ahayn mid lagu noolaan karo ilaa laga gaarayo sanadka dambe. aabbaha iyo wiilka ayaana go'aansaday in dadka deegaanka oo dhami ay wadaagaan inta u soo go'day. intaas kadib waxay aadeen goob ay dowladdu ka qaybinaysay cunto yar, balse dadka oo aad u tiro badan awgeed cunadii ayaa deeq. William markuu iskuulka isaga haray ayuu wuxuu caado ka dhigtay inuu maktabadda iskuulka uusan ka fogaan, maadaama uu wax akhriska aad u jeclaa, sida uu ku sheegay TEDx Arusha, Tansaaniya sanadkii 2007 mar lagu marti qaaday. maalin maalmaha ka mid ah, isagoo maktabadda soo galaya oo raba inuu buug uun iskaga madadaasho, ayuu isha wuxuu ku dhuftay buug physics ah, magaca ciwaankiisuna uu ahaa Using Energy. sawirka jaldigiisa korona uu ahaa qalabka baalayaasha la taago ee loo isticmaalay in awoodda dabaysha koronto looga dhaliyo, taasoo lagu magacaabo wind turbines. Williamna buuggii ayuu maalintaa akhriyay. markii uu ku soo laabtay guriga, wuxuu go'aansaday inuu isku dayo siduu u samayn lahaa qalabkan laga dhaliyo korontada iyadoo la isticmaalayo dabaysha, si qoyskiisa uga caawiyo in ay korontada ka helaan si ay waraabka beeraha uga faa'iidaystaan. isku day badan kadib, markuu isku keenay agabkii uu baahnaa, isagoo tusaale ka qaadanaya sawirkii uu ku soo arkay buugga, wuxuu hindisay qalab yar oo marawaxad ah si marka ay dabayshu ku dhacdo koronto ay uga dhaliso. wuxuuna ku tijaabiyay raadiyo inta uu ka saaray batariyadii. markii uu dareemay in ay shaqaynaysana, wuxuu u bandhigay aabihii si uu uga caawiyo dhisidda qalabka mid ka weyn. waxa uu lugaha dhaadheer ee marawaxadda kor loogu taago u isticmaalay tiirar laga soo gooyay geedo baxar saaf ah si ay dabayl badan u hesho. tuuladii oo dhan dadkii ku noolaa ee u dulqaatay abaartii ka jirtay ayaa isugu yimi oo qofba itaalkii caawimaad la yimi si looga baxo biyo yarida ay abaartu keentay. sidaas ayuuna tiirarkii ku taagay. marawaxaddii ayuu ku xiray qalab yar oo marka ay wareegto diinabada ceelka dushiisa ku xiran dhaqaajinaysa si awoodda dabaysha ay u wareejiso marawaxadda. marawaxadduna ay awoodda dabaysha ugu beddesho awood koronteed. korontada ay biyaha ka soo saarto ceelka si biyaha cabid iyo waraabka beeraha loogu isticmaalo. hal abuurka wiilkan yar ee duruufta adag ku jiray ayay noqotay in tuulada dhani ay manfaacsato, kadibna ay noqoto in ay ka helaan korontada daboosha noloshooda aasaasiga ah. baahidu waa hooyada hal abuurka. runtii filimka wiilkan yar waa mid dhiirigelin u ah da'da wax baranaysa, sidoo kalena qof kasta oo hal abuur leh uu ka faa'iideysan karo haddii uu isku day sameeyo. William mar ay wareysanaysay majalada caalamiga ah TEDx, waxa wax laga weydiiyay sida uu fikirka ku helay. kadib wuxuu ku jawaabay, waxaan akhriyay buug physics ah oo yaalay maktabadda, kaas ayaan ka helay xogta oo dhammaystiran. wariyaha oo la kaftamaya ayaa ku yiri, oo miyaad koobiyeysay dhisaanka buugga? wuxuu ku jawaabay, maya, xaqiiqdu waxay tahay in aan dhisaanka buugga raacayay, laakiin aniga ayaa leh waxqabadka. buuggu waxa uu isticmaalayay qalab waaweyn oo si fiican loo farsameeyay. sidoo kale taawarka dabayshu waxa uu lahaa 3 marawaxadood. aniguna waxaan isticmaalayay qalab yaryar oo aan isku soo arooriyay. sidoo kale waxaan u sameeyay taawarka dabaysha 4 marawaxadood si ay u dhaliso tamar badan. taasina waa hal abuurkayga. William oo ka sheekeynaya noloshiisii hore ayaa yiri, anigu waxaan ahaa wiil yar oo ka dhashay qoys faqiir ah. waalidiintay waxay awoodi waayeen in ay badbaadiyaan waxbarashadayda oo ay iga bixiyaan fiiga iskuulka. ardayda iskuulka iyo macallimiintaba kama heli jirin ixtiraam. marka la gaaro xilliga quraacda, ardayda iskuulka ila dhigataa waxay raadsan jireen nus saace, laakiin anigu ma aanan heli karin waxaan cuno. waxaana iska cabi jiray biyo oo keliya. intaas wuxuu ku daray, si la mid ah deegaanada kale ee Malawi, tuulada aan deganin waxay ku tiirsanayd beerashada. abaaro ka jiray tuulada xilligaas
ayaa waxay kaliftay in ay sii adkayso xaaladda nololeed. Ma aanan heli karin waxaan cunno iyo biyo aan cabno si aan u sii noolaano. Asagoo hadalkiisa sii watay ayuu yidhi, dhibaatada ayaa keentay xalka. Anna waan dhibaatooday, laakiin ugu dambeyn waxaan badbaadiyey dhammaan dadkii ku noolaa tuulada. Maanta bulshada dhexdeeda waxaan ka ahay qof sumcad fiican ku dhex leh. Meel kasta oo aan tago waa la isoo dhoweeyaa. Waan faraxsanahay. Waan faraxsanahay. Waayo magacayga waxaa yaqaana malaayiin qof. Wiilkan yar ayaa lagu magacaabaa William. Sheekadiisuna waxay dhacday 2001 waxaana laga qoray book ciwaankiisu yahay The Boy Who Harnessed the Wind. Aakhirkiina filim baa laga metelay. Williamna wuxuu ku helay bilado badan oo Afrika iyo heer caalami ah iyo scholarship deeq waxbarasho jaamacadeed oo uu ka helay wadamada kale ah South Africa iyo USA. Walaalaha qaaliga ah, muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Fadlan daawada channelka subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan filmaanta xiisaha badan ee aan halkan soo gelino. Mahadsanid.